guri ka buuq badan yahay caruurta mashaakilkaas wuu saameynaya bal maskaxadooda ayaa wax gaaraya gurigi way burbureen guri kas mashaakila taagan marka mashaakilka see loo xalinaya gurigi dhibka see loo xalinaya الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا اسكاله ونو نعمين كيسان سوكو بكرين رب سبحانه وتعالى قرآن كسوحو كليه وأما بنعمة ربك فحدث إخواني كلمة وحي كساب سنتهي خلافاتك سيلو حلنا مشاكلك أما بربرانك قريها سيلو حلنا كلمة انتاسي كساب سنتهي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كسوحو كليه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا دور نقاط أيان تابن دونا ودلان أيان مرينا إلهي سبحانه وتعالى ودأيو نوجيحي لبهدو إمامه سيلو حلنا يا أسباب تكنت محاواي صوبت موضوعا عن أدور تعاو وحاواي قري ويبربرين قري كس مشاكل تاغن marka mashaakilka see loo xalinaya guriga dhibka see loo xalinaya kelmada intaas ayay ku saabsan tahay ayadoo waqtigana cariiri iska yahay labada qof hadii meel ay isla joogaan way iskhilaafi karaan mashaakil wuu imaan karaa laakiin mashaakilkaas see loo xakameynaya waa aan u laabano suuratu nisaa ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها هذه الشقاق إذنك أتكب بغضان إبربلان إماضو إلهي وضعي ونوجاهي إلهي معوليه ويلك إهل كيسا يقبل إهل كذا هاي صرف الإستانة والله فيري علمات وحي إليهين ويلك إهل كيسا يقبل إهل كذا حماتي كما تلين يعني قولي إنو الدمو كما تلين يعني أيها مركا قوان قارن إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وحيانا كان عن لو بنانين وحواي إب هدو إمامو عرورتها لغا إلاليو مشاكل كقريقا عرورتها لغا إلاليو وحال أغاني قري كبوق بديهي عرورتها مشاكل كاسو سامين يا بل مسكحضو أيا وحقاريس مركا مشاكل كوحال الربا إن oo la xakameeyo waa la isku dhacay labadiin isoo fadhiista hadaad xalin weysaan markaas ehelki iyo meelahaas hal caada la dhahay marka ikhwaani waxa jirta shayaatin waxyaalaha koo guriyaha duminaya shayaatinta kamid ah nabigeena wuxuu noo sheegay ibliis baduu jooga baduu carshigiisu meeshuu u fadhiya wuxuu soo diray shayaatintu soo diray ibliis markuu uu soo diro ribooday geeyaan adi maxaa soo qabatay aan leeyahay mid ani waxaan soo qabtay uu leeyahay hebel waxa way zanaan ku ridi maya bari baa laga yaabaa inuu toobkan adi iska caadi waay suga leeyahay mid kala imaanay adi maxaa soo qabatay ani hebel saan oo u daba socday waxa waaye waxaan ku sameeyay salaadihii dhanan ka tagsi salaadii bari ku laabana mid kala imaanay adi maxaa soo qabatay ani hebel saan u daba socday gurigan ka dumay uu leeyahay talaaqadii afkiisa aan ka soo bixin bilada la siinaya good adi waa fiican tahay leeyahay fiiri marka ikhwaani shayaadiinta marka halis ka jiro waxyaalaha haddii gurigaaga burbulaan imaado dadka oo macnaha adig aad u wacayso ama gurigaaga ama dadka adig martiqaad ama dadka xaajidaada galaay dad waxaa la rabaa aamin ah oo sirtana banaanka aan geynaynin ifshaau sirri lama ogolo waxyaalaha oo guryaha ku dubo waxa waaye qofka banaanka ka keenay meelahaas kaale xaaji ii gal xaaji wixii gurigaaga lagu sheegay banaanka yaalaan markas waxaa la rabaa qofka adiga oo sirtaada ilaa kan qofka adiga aad u maleynayso inuu saaxiibkaaga yahay ama walaal ku yahay asaa cadow ku ah adduunka waxa waaye xaasidiintu way bateen munaafiqiintu way bateen guryaha dadba guryaha dumiyo qof hadii gurigiisu dumo guri kale kama naxay marka waxaa la rabaa ikhwaani guryaha hala ilaaliyo hala isu sabro sabra guryaha lagu dhaqa dulqaada lagu dhaqa
sababtoo ah wacaashiruhunna bilmacruuf yuri ilaahay macruufa lagu dhaqo haweenka sababtoo ah waxa waaye waa la isqaban karaa laakiin mar kasta wanaagga ha lagu dadaalo sababtoo ah haddii laysqabto waxa waaye waa laisku tanaasul ilmaha guriga ku jooga gabadhan waxa waaye gurigay ku joogtaa xaaskaaga waaye waxaa laga yaabaa caaw markaa guriga kusoo laabatid in hadal lagugu diro oo wax oo lagu dhaho adiga markaa waa loo dulqaataa waa la sabra waxyaalaha qaar dhagaha waa laga laabtaa laakiin haddaa gabadha hadalkii wax kasta oo gabadha dhahday haddii adiga daba taagan tahay maxaasaan u dhahday oo kursigaaga aad soo qaadatay gurigaas ma taagnaanayo marka ikhwaani halaisku sabro halaisku dulqaato waana halis aamino aada umahadsanteen wasala allahu calaa sayidina muxamed